وأيضا waxaan doonayno baadi goob aan ugu jirno dalkii waa burburay annagaana burburinay waxaan bilawnay barnaamij la yiraahdo isxilqaan yaan bilawnay oo aan ku bilawnay meelihii la yaqaanay madxafka qaranka tiyaatarka maktabada qaranka iyo taalooyinkii oo dhan inaan dib u soo celino aan dhisno annagoona kaalmo shisheeye helin oo suu xilqaamayna kulligeen qofkii ku bixin kara xooggiisa iyo dhidkiisa qofkii dhaqaale ku bixin kara maxaan ku yiraahdaa iyo qof alla qofkii wax ka geysan kara hawshaas meel fiican ayay noo maraysaa waxaan doonaynaa runtii in aan gaarsiino fariintaas idinka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed dhalinyarada ha u badnaadaan ee ku nool diaspora ku nool inay wax ku darsadaan dalkooda waa rabtaan dal dhisan dal qurxoon waa rabtaan dal sharaf leh waa rabtaan dal dawlad adag leh waa rabtaan laakiin wuxuu u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay wax gaar ahaan anigu aan u baadigoobi karan maaha waa wax kulligeen loo baahan yahay inaan qayb ka qaadano qayb lahad aan ka wada qaadano sidii dalkaasi meeshuu u taagnaa aan hor uga qaadi lahayn hawshaas waa bilaaw waa urdun waxaan rajaynaynaa dalka oo dhan inaan ku dhisno warshadii ugu horeysay oo aan qalabkeeda ka soo saari lahayna waa furnay muddo ay xirnayd qalabkeeda waa la furtay intaan imaan ka hor meel yay iska taalay hadda alxamdulilah waa isku celcelinay dib badan baan u marno hadda way shaqaynaysaa oo wax soo saar ayay leedahay waxaan doonaynaa dalka inaan ku dhisno intayna la gaartaba hadduu ilaah yiraahdo waxyaabaha aan rabno aan higsanayno oo iyadana si baad goobka ugu jirno waxa weeye dadkeenu waxay u baaba'aan caafimaad xumo iyo cudurro maxaa yeelay faqrigu waa badan yahay colaad waa badan tahay dawladdu dadaalkeedu runtii dhanka caafimaadka waxaan gaarnay inaan la soo wareegno laba cisbitaal Martini iyo cisbitaal Banaadir inaan la soo wareegno intaas waan ugu yartahay waxaan rabnaa inaan gaarno ama gaarsiino dalkoo dhan gobolada dhan degmooyinka in dadku ay helaan maxaan ku yiraahdaa dhakhtar iyo cisbitaal lacag la'aan hadduu ilaah yiraahdo waxa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay oo aan rabnaa inaan kor u qaadno wacyiga dadka aqoontooda wacyigeena inaan kor u qaadno wadaniyadii aan soo celinno ummadda Soomaaliyeed waxay saamid yihiin aan xoog saarno waxba kuma kala duwanin waxaan ku kala duwanahay waa saan in sheegay oo 200 sano ka hor dhintay yaa rabtaan inaan la noolaataan nin dhintay waa hore kii hadda joogay martaan la noolaataan oo walka ah marka dadka wacyigooda inaan kor u qaadno oo Soomaali inay tahay dad homogeneous ah oo ah dadka magaciisa dalka in la yiraahdo wada saas ma jiro adduunka annaga waxaan nahay hal qowmiyadaas magaceeda dalka la yiraahdaa dalkaasna waa dal khayraad badan dadkiisana waa idinka oo hadda cid walba leedahay waxaan u baahnaan lahayn dhig Soomaali oo kulul in lagu shubo marka wacyiga dadka inaan kordhino qabkoodii aan kor u qaadno wadaniyadoodii aan kor u qaadno waa dhab ummad markay muddo dheer ay ku jirto dagaal sokeeye qabka hoos u dhacaa oo dadku kalsoonida ka lunta mar waxa maqlaysaa dalkeena waa la qaadanaya dawladda Hiblaya qaadanaysa war adiga hadaa noo sheegay dalkaaga loo qaadanaya adaa noole adigu hadaa isdiibto ama aad dhimato waa sax waa la qaadan dalkaaga dalka dal fiican weyn laakiin hadaa soo taagan tahay Soomaali waxeeda qofkii u yimaada isaga u dhimanaya markaas dhiibina qabkiina kor u qaada kalsooni lahaada qof Soomaali meel ku nool yahay dalkiis lama qaadan waa jiraan dad Soomaali ah oo la adeegsado waa jiraan oo shay adeegsado waa jiraan dadkaas hal meel aan uga soo wareejisano waliba waa jireen wax cusub maaha
hal meelaan uga soo wareejisano dalkeenna dal kale ma lihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaana ku dhimanaynaa qof walba waqtigiisa dhaafayana ma jiro marka niyadda khayr u sheega cid maliqi karta ma laha dacar soomaali waa dacar wey waa la isku dayey meeqa sana la isku dayaayo dadkii naga horreeya waxba garanaynin oo dadkooda fiicnaa banaanka laga maray oo waddamadii annaga africa ugu horreeya xorriyadda qaataannahay soomaali laguma soo dhaco dabkiina kor u qaada kalsooniina kor u qaada haddii ay jiri jireen madax aad shaki ka qabtaan walaayo shaki hanaga qabina annagaa idinka hor dhimanayna annagaa diyaar u ah inaan ka hor dhimanno laakiin hanaga harina hanooga bixina dagaalka